kulan wacan daawada mar kale wararkii ugu dambeeyay ee ka soo baxaya dalka Turkiga ayaa muujinaya in wareeg labaad aan laga maarmaynin doorashada madaxweynaha dalkaasi maadaama la isku barbar dhacay murashaxa go'aamin kara cidda Turkiga madaxweynaha ka noqonaysa ka oo aad looga hadalhayo gudaha dalka Turkiga iyo rajada madaxweyne Erdogan haddii la aado wareeg labaad ayaan ku eegayaa barnaamijkeena falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha amniga balse marka hore fadlan ka mid naqa saaxiibada ku xiran bartayda Facebook lana wadaag barnaamijka saaxiibada si aad maalin walba ula socoto barnaamijka falanqaynta mahadsanid kulan wacan daawada mar kale doorashada dalka Turkiga ayaa u muuqata in markii ugu horeysay dhici doonto doorasho labaad oo ku celis ah kadib markii madaxweyne Erdogan uu ka horumaray siyaasiga Almaaniga oo ay la loolamayay balse Erdogan uu ku guul dareystay in uu gaaro codadka boqolkiiba 50 oo loo baahnaa sida ay muujinayaan natiijooyinka aan rasmiga ahayn ee laga helayo dalkaasi Turkiga wakaalada wararka ee dawladda Turkiga ee Anadolu ayaana muujinaysa in Erdogan uu helay 49.42 boqolkiiba codadkii la tiriyay halka murashaxa labaad ee Almaaniga ee la loolamaya madaxweyne Erdogan Kemal Kılıçdaroğlu uu helay 44.95 boqolkiiba codadkii la tiriyay hogaamiyaha mucaaradka Kemal Kılıçdaroğlu ayaana kaalinta labaad ee uu galay codadka la tiriyay waxa ay ku tahay niyad jab kadib markii codadkii ra'yiga ee ka hor doorashada ay muujiyeen in Erdogan isaga uu ka horeeyo doorashadan ku celiska oo ah tii ugu horeysay taariikhda Turkiga waxaa la qorsheeyay in ay dhacdo 28 bishan May Kemal oo ah 74 jir ayaana dadaal ugu jira sidii uu ku guuleysan lahaa saadaalaha la bixinaya ayaana muujinaysa in Erdogan mar kale dib loo soo dooran doono xamaasad aad u sareysa ayaana ka muuqata codbixiyaasha diiwaan gashan ee taageeraya madaxweyne Erdogan iyo xisbigiisa ee Keybat waxaa si aad u taageersan muxaafidka ama dadka diimaha ku adag ee Turkiga halka mucaaradka ay taageerayaan kuwa Almaaniyiinta ee ku nool magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi Sinan Ogan oo murashaxa saddexaad ayaa helay boqolkiiba 5 codadkii la dhiibtay waxaana uu go'aamin doonaa natiijada doorashada Turkiga cidda uu taageero ayaana muhiim noqon doonta waxaana la saadaalinayaa in xisbigiisu ay isku aragti yihiin Erdogan oo ay ka midaysan yihiin wadaniyadda iyo ku adkaanta diinta Islaamka waxay u badan tahay in codadkiisa uu helay badankood ay aadi doonaan madaxweyne Erdogan marka la aado wareegga labaad ee doorashada madaxweynaha dalka Turkiga Sinan Ogan waxa uu ka mid yahay dadka magacyadooda loogu hadalhaynta badan yahay doorashada Turkiga musharaxa ATA Alliance oo doorashada ku soo galay musharax madaxweyne oo aan xisbi ka tirsanayn ayaana u muuqda in uu helay wax ka badan boqolkiiba 5 marka loo eego natiijooyinka doorashada ee aan rasmiga ahayn Ogan waxa uu sidoo kale ku doodayaa in furo uu noqon doono doorashada madaxweynaha oo uu sheegay in loo gudbi doono wareegga labaad Mr. Ogan oo la hadlay warbaahinta Focus ayaana waxa uu xusay in xisbiga HDP iyo Hudda ay yiraahdeen ma noqon doono furaha doorashada laakiin wadaniyiinta Turkiga ayaa noqon doono go'aaminta doorashada sida uu sheegay isagoo sharaxaya xeeladihiisa wareegga labaad barnaamijka uu ka qayb galay doorashada ka hor Mr. Ogan ayaa shaaca ka qaaday in uu dalabaad wato oo uu ogol yahay in wada xaajood la galo xilli uu la hadlayay kanaalka YouTube-ka ee wariyaha Turkishka ee Bahar Faysan Mr. Ogan waxa uu yiri waxaan ka wada hadli doonaa dalabaadkayaga dhinacyada aan miiska la fariisanayno dabcan kuma noqon doono shuraako si bilaasha waxaan wada xaajood la galayaa cidda aan la fadhiisto oo ay ugu horeyso golaha wasiirada ka uu doonaya in uu saameyn ku yeesho golaha wasiirada ee xukuumadda guuleysata ay soo dhisi doonto Sinan Ogan oo mar kale ku adkeysanaya in uu go'aamin doono natiijada doorashada ka soo baxda wareegga labaad ayaana waxa uu shaaca ka qaaday in uu kala tashan doono isbahaysigiisa cidda uu la shaqayn doono bishii September ee sanadkiina waydaartay ee 2022 Ogan waxa uu bartiisa bulshada kaga dhawaaqay in uu yahay murashax madax bannaan oo aan xisbi ka tirsanayn sanadkii 2011 waxa uu ka mid noqday Ogan baarlamaanka isagoo ku xigeenka xisbiga MHP laakiin xisbigaas ayaa laga saaray khilaaf soo kala dhex galay waxa uuna ku dhawaaqay in uu u tartami doono xilka madaxtinimada kadib markii xisbigaasi doorashadii uu ku guul dareystay sanadkii 2015 Sinan Ogan ayaana bartiisa Twitter-ka ku soo qoray MHP waxaa laga yaabaa in ay ka hooseeyaan heerka laga filayo taasoo ka careysiisay guddoonka xisbigaasi oo markii dambe laga saaray
Sinan Ogan oo khudbad dheer ka jeediyay telefishinka TRT ee dowladda waxa uu fariintiisa ku yiri doorashada 14 May waxay dalkeena u tahay doorasho masiiri ah. 14 May waxaad u codayn doontaa in 13 milyan oo qaxooti ah ay dalkan ka baxaan iyo in ay joogaan. Waxaana ololihiisa doorashada uu ku muujiyay in qaxootiga soo galootiga oo malaayiin ah laakiin u badan qaxootiga ka soo galay dalka deriska ee Suuriya uu dib u celin doono Mr. Ogan ayaana khudbadiisa sidoo kale ku bartilmaameedsanayay xisbiga talada hay ee Kaybat Erdogan waxa uu codbixiyaasha u jeediyay fariintiisa waxaana uu ku ballan qaaday in haddii isaga codka la siiyo qaxootiga uu saari doono. Mr. Ogan ayaana ku dhaliilay Erdogan qaxootiga. Hadallada Mr. Ogan ayaana waxaa ka mid ahaa qaxootigu markay isbitaalada tagaan waxay dawooyinka ku qaataan si bilaash ah halka muwaadiniinta Turkishka ay lacag dhiibaan. Haddii aynu eegno taariikhdiisa Mr. Ogan shakhsigan go'aamin kara natiijada doorashada Turkiga waxa uu dhashay sanadkii 1967 waxaana uu jaamacadda Marmara ka baxay sanadkii 1989. Sanadkii 2009 waxa uu shahaadada PhD-da ka qaatay jaamacadda MGIMO ee dalka Ruushka. Intii u dhaxaysay sanadihii 1992 ilaa 2000 waxa uu ka soo shaqaynayay hay'adda ganacsiga dalka Turkiga. Waxaana sidoo kale uu aasaasay shirkadda loo yaqaano Turkisham oo ah mid ka mid ah falanqayaasha istiraatiijiyadaha sanadihii 2004. waxyaabaha doorashadan Turkiga saameynta ku yeeshay waxaa ka mid ah dhulgariirkii bishii February ku dhiftay 11 magaalo oo ka mid ah dalkaasi Turkiga. 8 ka mid ah magaalooyinkan waa magaalooyinka ay ku xoogan yihiin taageerayaasha madaxweyne Erdogan iyo xisbigiisa. Marka loo eego natiijooyinka hordhaca ah codadka la tiriyay waxba kama bedelin laakiin waxaa hoos u dhacay 2% codadka 5 ka mid ah magaalooyinka halka 3 kale ay taageeradoodu ay waxba aysan iska bedelin. Si kastaba ha ahaatee doorashadan oo aad moodo in la isku barbar dhacay waxaa la rajaynayaa in loo tallaabi doono wareegga labaad waxaana go'aamin doona Mr. Ogan oo u janjeera dhanka xisbiga madaxweyne Erdogan marka aad eegto xagga wadaniyada. Wixii waray ku soo kordha waxaan ku eegi doonaa barnaamijkeena dambe ee falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha amniga.